yaa allah qofkii asigoo magacaan leh ku celceliya kun mar ilaahay qalbigiisa wuxuu ka sifaynayaa tuhinka iyo shakiga go-aan iyo iimaan buuna ilaahay ugu bedelayaa haddii qofka oo qabo cudur aan daawo lahayn ama daaweyntiisii uu ka daalay magacaani uu ku celceliya ilaahayna weydiista inuu caafimaad sii wuu caafimaadayaa inshaa allah yaa raxmaano asigoo leh qofkii ku celceliya magacaani 100 mar salaadaha waajibka ah kadib wuxuu yeelanayaa xasuus wanaagsan iyo feejignaan damiin qalbi adagna ma noqonayo inshaa allah yaa raxiimu asigoo leh qofkii ku celceliya magacaan 100 mar salaadaha kadib dadka dhammaan wuxuu ilaahay ugu dhigayaa aabe iyo hooye wuxuuna ka badbaadinayaa masiibooyinka dunida yaa maaliku asigoo leh qofkii ku celceliya magacaan in badan salaadaha subax kadib maalin kasta wuxuu noqonayaa mid tanaad ah oo farxad badan inshaa allah yaa quduusu asigoo leh qofkii magacaani ku celceliya 100 mar maalin kasta wuxuu ilaahay ka xoreynayaa welwelka walaaca iyo cuqdad nafsiga inshaa allah yaa salaamu asigoo leh qofkii 160 mar magacaani ku celceliya ama 115 mar kuna aqriya qof xanuunsan oo ka caafimaadaya xanuunkii hayay qofkii markasta ku celceliya ilaahay masiibo oo dhammaan ayuu ka nabadgelinayaa inshaa allah